لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج كان كوبان ولا ليال مانتا وحان وقهد دونا وقشدا قفك حنوسن سيدا دوكتين قفك بلا آدن كوامر عافمات قبو إيمر وحنوسن يهي دين الإسلام كونا قيدو حكم ده إن أي شرعي سي أما أجر نكرتبتي إلا صوب وقضو قفك حنوسن سيدا دوكتين دين الإسلام كوح كستي جديشنا أدابا يليهن ما أنت برنامج كان وحانو كفيرين دونا أدابتا صوب وقشدا قفك حنوسن كاو شوحا سيدا دوكتين ولا ليال دين الإسلام كوا دين حريص بدن قف مسلم صوب وقضاء إلهي سبحانه وتعالى رسولك سأجر فربنا أي وسوقين أجر كاس حكام ده قف مسلم صوب وقضاء محمد صلى الله عليه وسلم ليه هاي وحقوس اللساء أمود عيسى تضباطا كل ملائك هي أود عيسى حدو أرور صوب وقضاء إلا وكقلب السنة حدو قلب صوب وقضانا إلا وكوابر السنة كنت أجر هذا فربنا أجر كاس ده وقف إذا سنكرنا وسؤال سويدين له حتى بقى أنكلا فائدة سنو أنا سو فائدة إنه لكن أسرع العيد وما أنت إذن كلا سهر ليا سبتال وين أكويا لما قال هذا عند جنا هاي لا تكون والله حكم إذا قلت المرجع تصوب وقال يصير إلى وقت مناسب أصوب وقتين حاجة لي وقت ينفعني أنا ده صوب وقتين هل سو وجدت إن القف يدك الجري إسلام كان لبعته ممكن يصير سبتال كذا سأستخدم كل ده إن أصوب وقتين وقت في عن مناسب طبعا اداب طلبات ولا ليال waxa weeye waa qofka inaad weydiisid xaaladiisa oo aad wareysatid maxaa yeelay qofka xanuunsan wuxuu u baahan yahay marka hore inaad salaantid kadibna aad si naxariis leh aad u weydiisid sidee tahay laakiin lama ogola inaad su'aasha ku badisid oo aad mataqaanaa su'aalo aad u sii weydiisid laga yaabaa qofkaas inuu jecel yahay inuu ku waramo laakiin haddana su'aalaha qaarkood ay xasaasi noqon karaan marka ku gaabso inaad weydiisid xaaladiisa guud isaga ayaa ku warami doona su'aalahana ku dhibin waxaan maleynayaa qof iga gaawanaa tamutiya dhalinyaro waxaa laga yaabaa oday u ahaa qof walba ku dhici kartaa ogow inuu dhaawac kusoo gaari karto aadaabta saddexaad ayaa noqonaysa inaad qofka u duceysid weli duco qalbiga aad uga duceysid ducooyinka qofka lagu duceeyo waxaa ugu fiican ducooyinkii ka sugnaaday nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ducooyinka ka sugnaaday sala allahu calayhi wasalam aad ayay u fara badan yihiin laakiin waxaan barnaamijkan kusoo koobi doonaa ama ku sheegi doonaa ducadan as'alu allaha alcadiim raba alcarshi alcadiim an yashfiyak ilaahay subxaanahu watacaala qofka xanuunsan inuu caafiyo ayaad u weydiinaysaa ducadan nabi maxamed sal alla alay slam wuxuu sheegay inuu ilaahay subxaanahu watacaala qofka uusan ajeeshiisa qorin uu ku caafin adaabta afraad waxay noqonaysaa in qofka xanuunsan aad xasuusisid sabarka iyo inuu ilaahay subxaanahu watacaala ugu dembi dhaafi doono xanuunku xanuunsan yahay maxaa yeele walaalayaal axaadiis badan nabiga sala allahu alay wasalam oo ka sugnaatay waxay sheegaysaa qofka muslimka ah ee xanuun lagu imtixaama inuu ilaahay subxaanahu watacaala dembi dhaaf ooga dhigayo waa bishaaro aad u fiican adigoo walaalkaa qalbiga ka dilaynin haddana waxaad u sheegtaa xanuunkiisa in ilaahay subxaanahu watacaala ugu dembi dhaafo adaabta shanaad waxaa ka mid ah inaad qofka aad soo booqatay aadan ku dheeraanin runtii waxaad moodaa dad badan inay halkaan khalad suubiyaan oo ay iska kor fadhiyaan oo ay ku kor sheekaystaan bal mararka qaarkood waxaad arkaysaa in isbitaaladii ay siyaasadda uga kor sheekaysanayaan qofkii xanuunsanaa isla markaana ay ku dirir iyo balaayo galayaan arrintaas arrin fiican maaha umana fiicna qofka xanuunsan umana fiicna isbitaalka ku jiro mararka qaarkood waxaa dhacda qofka inuu qolka la wadaago qof ajnabi ah markaasna ay dadkii aad ugu soo farabataan arrintaasna waxaan leenahay walaalayaal ha la yareeyo meel kasta aad joogtaan mar walbana xasuusnaada inaad qofka xanuunsan iyo dadka la joogaba aad ixtiraamtaan ilaahay subxaanahu watacaala ha idin ixtiraamay qodobka lixaad wuxuu noqonayaa qofka xanuunsan in la yidhaahdo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku caafinayaa oo loo bishaareeyo oo niyadda loo dhiso oo laakiin aanna niyadda laga dilin dadka qaarkood waxaa moodaa qofkii xanuunsanaaba inay xanuun kusii noqdaan isla markaana ay walwal iyo ku abuuraan dhibaato aan jirin gaar ahaan dadka qurbaha jooga oo dhow qofkaas waxaas hadday ku siiyaan ha ka yeelin gaalada saas ha ka yeelin daawada ha ka yeelin waad dhimanaysaa hebel baa hadda ka hor saas u galeen looma baahna qofkii xanuunsan niyadda laga dilo waxaa loo baahan yahay qofka xanuunsan in loo bishaareeyo oo la yidhaahdo insha allahu tacaala
waad caafimaadaysaa dambeyntii runtii ahaa qodobkii ugu muhiimsanaa oo ahaa inaan ku bilaabo laakiin dib ayaan u dhigtay waa niyadda walaalayaal wax walba niyadda kama soo haraan maxaa yeelay qof kasta camalku uu subinayo niyadiisa ayay ku xiran tahay haddaad qofku u soo booqatay ilaahay dartiis ilaahay subxaanahu watacaala uu ka ajarsiinayaa waxaa ilaahay subxaanahu watacaala weydiisanayaa inuu caafiyo qof kasta oo muslimiin ah oo dhibaataysan oo xanuunsan isla markaan ilaahay subxaanahu watacaala kurbada iyo mataqaana hamiga ka qaado waxaan walaalaha si gaar uga codsanaya inay usoo duceeyaan gabar walaasheen oo ku xanuunsan magaalada aan joogo isla markaana xaaladeeda ay khatar tahay inuu ilaahay subxaanahu watacaala asaga ayaa wax walba awoodee inuu caafiyo walaalayaal xasuusnaada inaad like saartaan pagekayga naasir cadceed isla markaana aad subscribe saartaan rugteena youtube-ka ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh